iyo ragba sidoo kale waxa ii muuqda suldaan isimada ka socda dhammaan waxaan ugu salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka koowaad walaasheen amaal oo caawa u fadhino buuggeeda ku saabsan cudurka macaanka run ahaantii dadkii ka horreeyay oo dhan waxaan u malaynayaa de kolley wixii ay noo soo bandhigi lahayd baan wax ka taataabanay inkastaan jeclayn marka hore horta inay iyadu inoo soo jeediso buugga iyo muhiimadiisaba laakiinse waxaan rabaa bal inaan laba qodob ka iraahdo cudurka macaanka run ahaantii waagi hore cudurka macaanka dadkeena Soomaaliyeed kuma aysan baraarugsanayn oo dadku iyagoo kaadi macaan buu qofkaas qabaa la leeyahay ayuu dhiman jiray oo wax treatment aan qaadan laakiin markii dambe lagu baraarugay waxa la helay treatment iyo dadku siday maaragtay isaga ilaalin lahayn oo la tacaali lahaayeen cudurkan dawo male baa la yiraahdaa oo dabar goysa laakiinse wuxuu leeyahay qofku hadba siduu ula tacaalo way cudurkan waa cudur lala saaxiibo hadba saa ula saaxiibto ayaad waxa weeye uu kugu ahaanaya mar aan wax ka akhriyay cudurkan kulli guud ahaan walaalkan xiriiriyaha ayaa inoo sheegay adduunka sanadkii 28 ilaa 30 milyan oo qof ayaa cudurkan u dhinta laakiin se waxa raadiyay xog Soomaaliya markii la yiraahdo Soomaalida intee u dhimata marka runaantii markaad akhriso reportkii ugu dambeeyay ee WHO waxay sheegaysaa Soomaalida sanadkii ugu yaraan 19 qof baa sanadkii u dhinta waa report la sameeyay statistics sameeyay WHO 2017kii marka mar labaad iyo mar saddexaad baa walaashan baan uga baxayaa oo aan waxa way si fiican inooga soo bandhigi doonta buuggana run ahaantii waa buug aad bulshada faa'iido ugu leh cudurkana waa cudur hadda Soomaalida aad ugu soo badanaya aan u baahannahay inaan la saaxiibno run ahaantii qof walba halkan soo istaagana waxa la lahaa waa inuu at least uu ka qayb qaataa walaashan ku dheerigeliyaa inuu buuggaas isagii tiimkiisa ay gataan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinkana waxa leeyahay laga yaabo dad badan xataa dad inaga mid ah inay iskor qabaan meeshan fadhiyaan aniguna diyaar baan lahay buuggayga waa qaadanaya insha Allah bidnaa kariim wixii tiimkaygana insha Allah waa ku soo xiriyaa qoraagana waa la soo xiriiri doonaa waana aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh